برني وهو Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota sanadkii 2021 inay ahayd baan u maleynayaa bishii February 8 ayaa waxa hooyo Bernie kufsi u geystay ilmihii yaraa ay dhashay oo 8 jir oo ninka lagu dhashay nin qabay oo 3 ruux ay u dhashay daahir nuur la yiraahdo okay sideedaba sharciga waddanka Mareykanka daahir nuur markii ay gabadhu sheegtay ilmaha yar bay ahayd sharciga Mareykanka u yaala qofka la iskama soo qabto Soomaaliya dhagaha furta qofka la iskama soo qabto mana la iska xiro marka wax lagu soo eedeeyo markii gabadha yari ay kufsigii ay u sheegtay ma uusan gelinin xubinta tarankiisa ilmaha yar waxa uu sameeyay korku ka marmariyay wuxuuna u daaray film boona ilmaha yar waxay la wadaagtay walaasheed ka weyn walaasheed markay kiiska u sheegtay walaasheedda toos waxay u wacday booliisku waa yimaadeen guriga ayuu ka cararay lama xidhin baaritaan baa la sameeyey baaritaan bila ka bacdi baa la soo qabtay halkaas waxaan rabaa inaan idiin jilciyo bointigaas inaad wax fahantaan oon idiin jilciyo ayaan rabaa yacni booliisku waxay ilaalinayaan xuquuqda qofkani leeyahay kiiska marka lagugu soo eedeeyo isla markiiba haddaan goobta lagugu qabanin booliisku awood uma laha in ay ku xidhaan waa in baaritaan la sameeyo baaritaanka ka bacdi waa in surgeon warrant la soo gooyo wixii ka soo baxa lagu soo qabto dhagaha furta Soomaaliya sharcigu suu shaqeeyo muddo ka bacdi ayaa ninkii la qabtay waxaa la soo helay telefoonkiisa inuu ka sarji gareeyay filinka boonada uu gabadha u daaray iyo waxyaalihii oo dhan waa la xukumay waa la jaaj gareeyay dacwadii baa bilaabatay waxaan rabaa inaan caawa idinla wadaago kiiskan horeyso ilaa iyo dambayso waan ogaa waana la socday trialkii ayaa ka bilowday gobolka Minnesota intii aan hadda soo baqnaa 8 nin mise 6 nin oo markhaati ah iyo islaan 81 sano jirta oo xaafadda Siirar degan oo markhaati ah aba meesha soo istaagay xaafadda kiisku ka dhacayna waa karameel 8 nin waxaa ku jira 4 nin oo culimo sheeganaya rag business ah bal waxaan soo qabanayaa hooyadii Soomaaliyeed dulmiga intaas leeg bal ila dhageysta okay suuqa waxaan soo qabanayaa hooyadii Soomaaliyeed ee arrintu ay ku dhacday please hooyo Bernie soo qabso haddii aad ku jirtid please iga qaleeya dadka i soo codsanayo please jirtay in kale ayaan fiirinayaa isuga wax aad iyo aad looga xumaado wax laga aamusi karo dulmiga qaarkiis wax laga aamusi karo ma aha wax laga aamusi karo dulmiga qaarkiis wax laga aamusi karo ma aha okay way Bernie waa ku jirtaa okay please hooyo Bernie soo qabso laynka ana ayaan ku weydiinaya haddaad kaamarada wad ka leexin kartaa wax laga aamusi karo dulmiga intaas leeg ma aha salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته abti Bernie waa ku salaamay أبتي معنا وكاقة هذا سيدتها alxamdulilah abti gacaliso aad baan uga xumahay anigoo daalan oo saaka kacay inaad isoo wacdid oonad ila wadaagtid dulmiga kugu dhacaya oonan ka fogahay aad baan uga xumahay laakiin adiga daraada tigidkan u soo qaadanaya imaaraadkaan raba inaan aado waa kansalaya waana soo noqonaya oo wallaahi جزاك الله خير أبتي
okay hooyo barre muuse waxaad ii sheegtaa waktigii ay arrintu dhacday February 8 up to 2021. hello hello Ha up to what February 8 bishii 28 2021 ka habra la xusiyo. okay ninki waa ninkii aad ilmaha u dhashay imise caruur ayaad u dhashay saddex abti saddex laba wiil iyo gabar u dhalay. ilmaha oo kufsaday waxaad u dhashay nin kale Ha waa gabadheedii yareeyay bahdi kala ahayd. okay daada gabadhaas yar imise jir weeye sideed abti. okay goorma markii ay dhacday gabadhu waxay u sheegtay walaasheeda weyn soo maaha gabar 19 sano jir ay u sheegtay ha aniga ima sheegin markii hore maxay la wadaagtay inuu filmaan boonaha u daaray xubintiisa tarankana uu korka ka saarsaaray wallahi waxa sabtiyo arabta arintaas oo dhan bay la wadaagtay say dawladdu cadeeyeen wax badan oo okay goorma ayaa la soo qabtay isaga adiga dawladda hore kama soo qaban waad ogtay kayska hore lagama soo qaban waayo annaga hore booliska uga maanan yeerin intuu joogay banaanka markaan u saarnay ka bacdi ma aanan rabin inaan wax ilaa dawladdu wax cadayso in la xiro oo dambigaas aan ku sii fogaano ma aanan rabin dawladdu way baartay march oo dhan waa la baarayay april dhammaadkeedii baan jeclahay in la soo qabtay bay soo qabteen dawladdu okay halkaasaan rabaa abti inaan u jilciyo shacabka soomaaliyeedo sharciga waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota intiina caqliga la saaxiibka waxaan rabaa inaad wax ila fahantaan qofka marka lagu eedeeyo arrimaha kufsiga carruurta ama any crime lagu eedeeyo lama soo qabto dawladdu waxa ay bilowdaa baaritaan qofka la soo qabta ee la jaajgareeyo waa qof bila ka bacdi lagu hayo dembigii okay waxaa la soo qabtay abril ha waxaa lagu soo daayay damiin ha lacag ay ka dhigeen 75,000 waxaa la balmay ballamaan markaas noo bilowday in dacwadii ballamo yeelato oo habda ballan la tago oo habda hawsha la sii dhex galo dawladdu waxbay soo cadeeyeen okay second degree baa tahay waxaa ka dhigay damiinka lacagta 70,000 iyo sabtiga waxaa ka dhigay niman ganacsatada oo Soomaaliya ha saaxiibadiis wuu kaa googaya codkaafti ha abti kolay community-ga ka dhigeen community-ga saaxiibadiisa ayaa ka dhigay okay niman ganacsatada ka dhigay iyo culimadii ku sheegtay uu ku xidhnaa soo maaha ha kolay dadkan uu ku xiraabaa ka dhigay ninka lacagta waa laga dhigay okay goorma ayaa damiinka lagu soo daayay damiintaas horeeto waa ramadaankii horeeto dhammaadkiisii buu ramadaan soo socda ramadaan ku xiga dhammaadkiisii buu ahaa laakiin mar kale haddana la qabtay because maxkamad buu gooyey soomaaliyada haddana lacag ka dhigeen okay abti su'aalaha weydiinaya iga jawaab bishii abril markii la xidhay waxaa lagu soo daayay damiin ha damiinkii markii lagu soo daayay waxaa bilowday maxkamaddii buu gooyey markii dambana ha goorma haddana la soo qabtay waxaan u malaynayaa bishii 11aad 17keedii oo 16keedii mid ka mid ah 15kii buu gooyey waxaan u malaynayaa 17kii in la xiray waan taagnaa waan joogay maalinta waa anigii taagnaa maxkamadda waa la soo qabtay markii la soo qabtay maxaa haddana lagu soo daayay oo damiina aniga sidee dawladda ii sheegtay dawladdu wax kasta way nala soo socodsiinaysaa dawladdu waxay noo sheegtay markuu almost bilya bar xiraa ayay waxay noo sheegtay laysoo wacay waxaa leeyahay ninkii maanta la gudbiyey bir baa lug looga xiray magaalada kama bixi karo rekorkiisa waa public waad fiirin kartaa website-ka nala ka tusiyey waa kaasa khamiisay ahayd haddana jamcihiyaa laygu soo noqay waxaa lay dhahay ninkii 100,000 baa laga dhigay birtii waa laga furay okay waxaana ka dhigay niman ganacsatay niman culimada isku sheegaya kollay waa un dadkiisi markii hore taba lagama dhigin dawladdu bir bay ku soo xirtay soo ma ogid abti waa la socda dawladdu muduu xiraa bir ay ku soo xireen way noo soo anaga dawladdaa noo soo sheegtay anaga lawyer bay leedahay gabadha yar oo nala xiriira soo maahan oo shaqaalaha la socda maanti kabacdu wuxuu bilaabay inuu ku dacweeyo oo uu dacweeyo guriga carruurta ku nooshahay oo section 8ka iyo xaydhaadi soo maaha ha okay haddeer waxaa idiin bilaabatay maxkamaddii kale ee trialka ha trialka insha allah way soo socotaa weegan mondayda wixii ka dambeeyaan ogaan doonaa maalintay dhacayso dulmiga aad maanta ka qaylisay ee lagugu sameeyey waa imise markhaatiyaasha beenta uu soo qortay abti horta waxaa jirta
isbuuc ka hor ayaa waxaa ii yimid qof magacyo beena wata oo dhahaya dadkaan oo gurigaan deganaan rabaa baa la rabaa warkii waxaan ku dhahnay magacyadan ma naqaana orda naga taga maanta looyarka gabadha wuxuu noo sheegay magacyo fara badan intooda badan anigu waan aqaanaa qaarna ma aqaani culummo nimana ayaa sheekh hebel iyo hebel dad badan aqaana ku jira 7 nin 6 ilaa 7 nin waaye waxa kaloo ku jirta 7 nin waxa ku jira niman sheeganaya inay wadaatay yihiin oo u marxaati furaya magacyadoodaaba sheekh hebel ku qoran yahay okay maxay ku marxaati furayaan marka su'aasha arma inaan ogaado waa maxay waxay ku marxaati furayaan annaga ma ogaan karno nalooma sheegin waxa la dadkaan ayay dad ninku marqaantiyaal u haystaaye ma taqaanaa baa laygu yiri anigu waan aqaanaa dadka of course waan aqaanaa waa qaarna haddaan bartay case intooda badanna casekan ku bartay awal ma ana aqoonin okay idinku waxaad degantihiin karameelka soo horjeedkeeda islaanta kale ee siidar aad ii sheegtay 81 sano jirta maxay ku marxaati furtaa maamadaas waa maamo waayeela oo xanuunsan oo aan famil nahay uu kaa go'go'aya abti waa maamo waayeela abti waa maamo xanuunsan abti uu kaa go'go'aya may maqlay abti hadda may maqlaysaa uu kaa go'go'aya abti yes abti maamadaas waa maamo waayeela ma fahantay waa maamo xanuunsan waa maamo aan dad lahayn waa maamo oo bise waa dadka la hayaa waa yeelada la hayaa 80 iyo abaf jirta may maqlay sabab ku maqlaya marka adana codkayga igu soo noqday uu go'go'aya ku soco marka abti maamada annaga dhan ani hadda uma shaqeeyo laakiin hadda kor ana u shaqeyn jiray gabdhahayga yaryar baa u shaqeeya waa walaasheen siidar bay degantoo 20 sano ku nooshahay okay hadday siidar degan tahay maxay ku marxaati furaysaa oo marxaatigu yahay ma aqaan abtiyo ma aqaan waxay ku marxaati furaysaa isagaa la weydiinaya ani ma garanayo waxay ku marxaati furaysaa abtiyo waxa ku jira dadka marxaantiyaasha ma garanayo waxa ku jira abti dadka marxaati furaya ma kasaysaa waayo nimanka marxaati furaya waa nimanka community-ga waa culimadii masaajidada waa nimanka ganacsatada community-ga waa nimanka saaxiibadiisa ani waxaan la yaabana abtiyo way dulmiga noocaas community-gu noogu hayaan ay ma yaqaanaan maxaa dhacay way naloo dulminaya nimanka marxaati furaya ma waxay dhex taagnaayeen qolka ama telefoonkiisa markuu filinka boonada u daarayay gabadhaya ma aqaan abtiyo ma aqaan way ay noo dulminayaan ma garanayo ilaahay waa bil shabcaana lagu jiraa ramadaana soo socda waxay ii dulminayaan ma garanayo waxay noo dulminayaan abtiyo waxa ku jira ma garanayo abtiyo ayagaa la weydiinaya ilaahooda waxay la hortagayaan ayagaa yaqaana shuhuudka ilaahay meel dheer u geeya iska markhaanti fur ma ahan dulmiga intaas leeg waxaa kuu geysanayaa dad isu soo urursaday oo soomaaliyeed oo niman culimo ku jira soo maaha oo rag ah haddana oo rag ani waan aqaanaa magacayaashooda waan aqaanaa ilaahay subxaana watacaala ha ka baqaan waxaana iska kaadaayaan ilaahay waxaaba aqoon ilaahay lagama marqaan midda kale abtiyow waxaa ku jiru soo qortay ilmo 9 sano jira ku jira ilmo 9 sano jira baa ku jira waayo ilmaha 9 sano jira anaa dhalay gabadha uu waxyeelay gabadhii ka weynayd waaye oo ma isagaad u dhashay mise nin kalaad u dhashay gabadha waxyeelay ku aabba tahay marka muxuu leeyahay waa markhaantiyaasha waxaa kaloo ku jira wiil 12 sano jiro asagana ani aan dhalo gabadhaas la dhashay oo maxay markaas u soo qoran karaa ilmaha ma naqaano abtiyo ma naqaano ani dawladda shacabka ay maxkamad ma tagin waxaan ma naqaano laakiin liiska la ii keenay ku jiraan way carruurta yarka uu soo qoranaya okay carruurta halkaan yidhi nimanka markhaati furaya ee culimada sheeganaya iyo nimanka businesska ee reer Minnesota waa kuwii dulmiga kugu hayay markii aan magaalada joogay arrintoodana aan ka hadlay okay waxay maanta ku markhaati furayaan maxay tahay hello waa kuwii dulmiga nagu hayay waa kuwii na dhibay waa kuwii aan ka harsan weynay waa kuwii balaada abaabulayay waa nimana ilaahay ka cabsanaynin nimanka ilaahay aan ka cabsanaynin abti meeshay joogaan
qaaraa culimo isku sheegaya qaaraa saaxiibadiisa qaaraa ganacsadayaala magacyadooda waa nala waa naqaanaa waa naloo sheegay waan aqooday qaaraan aqooday qaarna ma aqaanin saad ii sheegtay magacyada waa gartay kuwa aad garatay oo dhan sidaad ii soo gudbisay ها وانا قانا قارا لا يشيغ انا قوضي اوكي هاي برني ادي aad baad u mahadsantahay boqolkiiba boqol shacabka Soomaaliyeed horta waa u jeedaan dulmiga waxa yaab leh niman culimo sheeganaya iyo niman business sheeganaya dawladdu iskama soo qabatee waxaan rabaa inaan mid idinka dhaadhiciyo arrintu waxay dhacday February 8 waxaana la soo qabtay April sababta waxa weeye dawladdu iskama soo qabateen qofkana iskama soo qabato ilaa iyo dambiga uu ku cadaado marka waxa yaab leh oo wax aad iyo aad loola yaabo ah in dad Soomaaliyeed oo nima sheeganaya oo waliba culimo sheeganaya ay maanta markhaatigu waxay ku markhaati furayaan marka uu gabadha yar qolka la joogo telefoonkiisa boonada uga taarayay yani inaan u taarin waxay arkayeen oo traffic ahayn markuu gabadha yar xubintiisa tanaka marmarinaya dulmiga intaas ayay Soomaali waxay isku dishay ayay dabada haysaa shacabka Soomaaliyeed waa aragtaan meesha wax maraya hooyada Soomaaliyeed ee dulmiga loo geysanayo ee caawa iga soo wacday iyadoo aan sii seexanayo daalanahay gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waa kiiskii aan ogaa ilaa iyo maalinta bilaabanayay ilaa iyo hadda sharciga waddanka Mareykanka gobolka Minnesota intii lacag laga saaxiibka yaqaano February qofka marka la soo eedeeyay April la soo qabtay waxaa la arkay gabadha boonadu u daaray nimanka maanta markhaati furayana waa nimankii businesska ku lahaa suuqa Soomaalida waa niman culimo sheeganaya qaarkood oo isku soo dulmiyay inay dulmiyaan hooyada Soomaaliyeed waxaan rabay inaan aado imaaraadka oo aan soo noqdo Ramadaanta oo ay ka dhiman tahay 2 casho waxa aan bedelayaa tigidkayga waxaanan imaanayaa gobolka Minnesota si aan u garab istaago barne muuse oo ogahay waxa ku dhacay nin aan uga hibaysanaya ma jirto nimanka markhaati furaya ee culimada sheeganaya iyo nimanka businessyada leh ee u markhaati furaya kufsada Daahir Nuur waxa aad ku markhaati furasaan ayaa rabnaa inaan isla aragno aniga idinku marna ma dhici doonto in aniga oo jooga hooyo Soomaaliyeed oo ogahay aqaano sharciga kiiska aan ogaa ilaa iyo maalintu dhacay February 8 2021 ilaa iyo intii aan soo baxay maxkamadaha dhanna aan taagnaa sharciga waxaan u aqaanaa si fiican qofka la soo qabtay April dawladdu waxa ay xaqiijisay oo ninkaas lagu jaaj gareeyay oo ay xaqiijiyeen in ninkani falkan uu sameeyay xaakimka ayaana xukumi doona waxa maanta madaxayga ka weynaatay shacabka Soomaaliyeed in niman business sheeganaya iyo niman culimo sheeganaya ay maanta markhaati beena isku soo urursadaan iyagoo dulminaya hooyada Soomaaliyeed waxaan goobjoog ahaa oo aan taagnaa caawa waxaan goobjoog ahaa oo aan taagnaa markii hooyada Soomaaliyeed uu dulmigu ku dhacay in community-ga oo dhan nimanka Soomaalidu dulmiga taageeraan Soomaalidu dulmiga qariyaan iyagoo qabiil iyo qofka xaqlinaya xagga ragga waxaan taagnaa oo aan ka dhiciyay wallaahi oo bilaahi oo talaahi caawa hadalkayga inta xabeeb ay qabatay waxaan taagnaa oo ka dhiciyay markii ay iskugu wada tageen oo ay yidhaahdeen damcaan inay cunsuriyadeeyaan wax loo dulqaadanayo maaha waxaan u dulqaadanayana maaha hooyo barne muuse waan soo noqonayaa tig degdeg aan soo qaadanayaa waa ku imaanaya anaana ku dhinac taagan nimanka markhaatiga beenta isku urursadayo adeerka caliya aniga idinku henabin waa wada joognaa waana isku imaananaa ballanteenu waa magaalada Minneapolis